Bismillahirrahmanirrahiim waa Somali News. Maanta waxaynu idiin soo gudbin doonaa qiso aad iyo aad u hadalhayn badan taasoo dhexmartay raago ugaas iyo garaad wiilwal iyo weliba gabay dhexmaray. Qisadaas oo dhammaystiran ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. Haddii aad channelka saaxiib inagala tahay inala saaxiib, haddii aad weli saaxiib inala noqon waynu kusoo dhaweyneynaa. Raago runtii gabay iyo waxyaabo kale ayaa dhexmaray, laakiin waynu soo koobaynaa. Raago ugaas ayaa waxa uu doontay gabadhii ayuu waxa ku qabsaday wiilwaal oo weliba ka aroos. Marka qiso dheer ayaa dhexmartay, weliba gabay laga tiriyey. Halkan ayaynu idinkula wadaagi doonaa. La soo wanaagsan. Raago ugaas ayaa gabar laga aroosay, kadib gabay ayuu tiri la yiraahdo Allayl Dumay. qisada sidan ay ku dhacaysa insha Allah la socda. Raago ugaas oo gabar intuu doontay gabadhii uu kasoo ama uu u daba maray nimay dhahaan wiilwaal oo uu ka aroosay. Raago ugaas ayaa imaad gurigii gabadhii hore uu ka doontay, kadib qisada sidan ayay ku sii soconaysaa. Raago ugaas markii uu gabay Allayl Dumay mariyay ayuu odaygii gabadha dhalay siiyey meher ama siin iyo meher isugu daray da'dii ka yareed gabadha oo aan iyadu waxba ka liidan tan ka weyn. Waa tii Soomaalida turi nin meel u caddahay meeli ka madow. Raago gabadhii waa la aqal galay, laakiin indhihiisu waa ay dhaafsanaayeen. Caado waxaa ahaan jirtay marka gabadh la guursado inay reerkooda la deganaato sanadka ugu horeeyo si loo sii baro maamuuska iyo maamulka reerku leeyahay. Sidaas darteed Raagi iyo Faarax wiilwaal waxay inanlayaal u noqdeen reerka ay gabadha ka qabeen. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Faarax wiilwaal haweeneydiisa u sheegay inay si fiican u soo labisato soona kaxayso walaasheed ka yar oo ah xaaska Raago ugaas. Dabadeed ama duleedkana ku soo agmaraan. Faarax intuu u yimid Raago ayuu ku yiri, war inakeen aan kabdhoodka shax ku soo ciyaarnee. Kadibna waa la israacay, iyagoo shaxaya ama shaaxaya ayaa dumarkoodii labadoodiiba soo agmareen. Kadibna waxaa la isweydiiyey ama Raago ugaas ayaa fiiriyey gabadhii. Labada gabar farq ayaa u dhaxeeyay. Mid waa mid la soo shirqoolay oo aan waxba ogeyn, midna waa mid wax weliba og laakiin ku talagal u samaysay. Markii uu wiilwaal gabadhii ay soo agmartay, Raago ugaas ayaa fiiriyey gabadhii wiilwaal. Garaad wiilwaal ayaa gabaygan tiri oo yiri, geenyada nin lehi goofashee ama qoofashee qolalka meeraysa, qiyaas li'in ninkii ugu tagow qowmama xigi. Raago ugaas ayaa yiri, geenyada nin lehi qoofashee qolalka meeraysa, ma nala qoonsanayaa hadday fulma noo qabato. Faarax ayaa yiri, qumba subag oo meel qotoma oo nin lehi quuto, qooraansigiisa kuugu daran qud aan la cunaynin. Raago ayaa yiri, qumbe malaba oo meel qotoma oo rag wada quuto, mana la qoonsanayaa hadday gaajo noo qabato. Garaad wiilwaal ayaa yiri, nin adowgi dhowr qaalin dhalay qolana kaa fiican, ma lagu qoonsanayaa hadduu gabadha kaa qaado. Ma lagu qoonsanayaa hadduu xilaha kaa qaado. Raago ugaas ayaa yiri, nin adowgi dhowr qaalin dhalay qolana kaa liidan,
ma la qoonsanayaa hadduu rubadda kaa qaado. Rubadda waxaa la dhunta ayuu mindi ka geliyey. Qisadaan sii wada raagay intuu ableydii iska gooyey ayuu Faarax laba u kala jaray. Dabadeed gabadhii uu jeclaa ee xilaha u ahayd Faarax ayuu faraskiisii ku ritay lana tagay oo reerkoodii u laaday. Raagi markuu tagay reerkoodii ayuu gabay ugu sheegay wixii dhacay, digniinna ku siiyey in waxa uu sameeyey rag badan u gi'i doon. Qabqab dhaafay waa maxay? Waa waxay laba qabiil qaran ku weydaaye. Qabqab dhaaftay waa waxay laba qabiil qaran ku weydaaye. Qaabiilba Haabiil intuu qoonsaduu dilaye. Qar ha dumo qiyaamana ha dhaco qoysna yuu hadhine. Qacda waaga dabadeed qolaha isu qayateene. Walle Faarax qooqaan ku dilay qoomamayn mahayo. Intaas ayuu tiriyey uuna reerkiina ayuu sidaas ugu digay. Soomaalidii horena waxa waaye gabay ayay isugu sheegi jirtay wax waliba. Assalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala wabarakaatuh.